السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يا لكن ما هو الدنيا كجوكان كسو دوادا يريسو official. هذا بدي أتها مركي كوه رئيسي أصاب وقتي جنال كان فضلنا إلى أن ترى سبسكرايب جنبنا كان عبر كومنتو سيكوسو جاران مقالة عصو. هدي أتكيش فيديو كان هدي الدعوة سنة لايكتا دعوسي وحبا أنت كامل يوسو وبلاش. هذا بحرب ما أنا كهذا ما أنتوا حكاه دونا waxyeelada uu leeyahay isticmaalka taabuuga. Haddaba haddii aad tahay qof taabuuga cuna waa lagama maarmaan in muuqaalkan aad daawato. Haddii aadan ahayn qof taabuuga aan cuninna fadlan la wadaag saaxiibkaaga taabuuga isticmaalo ee muuqaalkan la wadaag si uu uga aasho ama si uu iskaga joojiyo isticmaalka daroogadan xun ee taabuuga ah. intaan u gelin dulucda maqaalkan bal marka hore aan qeexno waa maxay taabuug inteesa laga keenaa. taabuugu waa nooc ka mid ah tubaakada taasoo afka la gashado taasoo ay dadka cuna ku tilmaamaan inay ka helaan firfircooni balse ay dhinac taalo dhibaatada uu leeyahay caafimaad ahaan. waxaana laga keenaa dalka Kenya waxaana keena diyaaradaha qaadka. baaritaan lagu sameeyay dadka cuna taabuuga ee ku nool Soomaaliya ayaa waxaa u badan dhalinyarada gaar ahaan kuwa dhigta dugsiyada sare iyo jaamacadaha. baaritaano kale oo dheeraad ah oo lagu sameeyay dadka isticmaala taabuuga ayaa lagu sheegay inay u badan yihiin gabdhaha. taasina waxaa lagu ogaaday dadka ka shaqeeya nadaafadda goobaha waxbarashada ayaa sheegay inay ka soo ururiyaan taabuugaasi musqulaha gabdhaha. waxaase la yaab leh maxaa u sabab ah inay cunaan hablaha da'da yar ee mustaqbal ku leh dadka iyo dalka Soomaaliyeed. waase su'aal u baahan in dib loo baaro. dalkeena Soomaaliya waxaa marka hore dhibaato ku hayay qaadka, sigaarka, shiishada ama badeecada iyo tubaakada kuwaasi oo maaro loo la'aa. waxaase hadda ku soo biiray nooc ka mid ah daroogada oo lagu magacaabo taabuug taasoo ah halis kale oo soo food saartay dhalinyarada soo koraysa taasoo la doonayo in lagu baabi'iyo jiilasha mustaqbalka dalka iyo dadkaba wax tari lahaa. qofka cuna daroogada loo yaqaano taabuuga ayaa loo diray digniin xoogan oo dhanka caafimaadka ah. haddaba sida aan ognahay wax kasta oo drugs ah saameyn ayay ku yeeshaan isticmaalaha sidii doontaba ha ahaatee. waxaa lagu faafiyey baraha bulshada dhibaatada uu taabuuga u geysto dadka isticmaala taas oo lagu muujiyey inuu aad u waxyeeleeyo afka sida carabka, ilkaha, faruuryaha, qaaxada iyo waliba mindhicirada. waxaana xusid mudan in baakada ay ku jirto taabuugu ay ku dul qoran tahay digniin ah inta aad ka filayso waxaa ka badan inta aadan ogeyn ee halis ah. si la mid ah digniinaha ku qoran baakada sigaarka, digniino badan ayaa lagu faafiyey baraha caafimaadka waxaana u badan dadka cuna dhalinyarada. waxaana qayb ka ah digniinaha loo diro dhalinyarada Soomaaliyeed. waana qayb ka mid ah digniinaha loo diro dhalinyarada Soomaaliyeed. haddaba sidee ayaan uga hortagi karnaa joojinta cunidda ama isticmaalidda noocan daroogada ah? waad ku mahadsantahay daawashada videogan. haddii aad ka heshay videoga like saar, asxaabtaadana la sii wadaag, kaligaaga ha isku ekeenin wixii faa'iido ah. hana ilaabin inaad subscribe tiraahdo gambaraalkana aad rukumato si muuqaalada aan soo gelin doona ay kuu soo gaaraan.